Germany amba Jarmalka sida caadiga ahna loo yaqaan Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka waa wadan u dhisan nidaam federaal ah waxaana uu ka kooban yahay 16 gobol. Juqraafi ahaan wadankani waxa uu ku yaalaa amba dhaca bartamaha iyo galbeedka qaaradda Yurub waana wadan xuduudo badan leh waxaana uu xad la wadaagaa wadamada Faransiiska, Denmark, Luxembourg, Belgium, Holland, Switzerland, Austria, Czech Republic iyo Poland. Bedka uu ku fadhiyaa waa in ka badan 300,000 kilomitir square. Magaalo madaxda amba caasimada wadankani waa Berlin waana magaalada ugu weyn uguna dadka badan waxaana ku nool Berlin dad tiradoodu gaadhaysa 3.6 milyan. Magaalooyinka kale ee waaweyn waxaa kamid ah Munich, Frankfurt, Hamburg. Guud ahaan tirada dadka dalkan degan waxaa lagu qiyaasaa dad gaadhaya ilaa 83 milyan oo qof. Waa wadanka ugu dadka tirada badan qaaradda Yurub waana wadanka saddexaad ee muhaajiriinta ugu badan ay u soo safraan. Taariikh ahaan haddii aynu eegno Jarmalku waxa uu leeyahay taariikh aad u dheer. Dalkan waxaa ka talin jiray imbaradoriyadii hore ee Roomaanka. Kadib dagaalkii labaad ee adduunka, Jarmalka waxaa loo kala qaybiyay laba qaybood oo kala ah Jarmalka bari oo ay ka arriminayeen Soviet Unionkii iyo Jarmalka galbeed oo ay ka arriminayeen Mareykanka iyo xulafadiisii la socotay ee Faransiiska iyo Ingiriiska. Taariikhdu markay ahayd 1990 ayuu wadanka Jarmalku dib u midoobay waana waqtigii la dumiyay darbigii caanka ahaa ee Berlin. wadanka Jarmalku waxa uu xubin ka yahay midowga Yurub, qaramada midoobay, gaashaanbuurta NATO iyo dawladaha G8. waa wadanka ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub guud ahaan waana dalka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. waxaa ka horeeya wadamada Mareykanka iyo Japan oo kaliya. GDP-ga wadankan waxaa lagu qiyaasaa 3.8 trilyan halka GDP per capitalku uu yahay in ka badan 40,000 oo dollar, taasi oo macnaheedu yahay dhaqaalaha wadanka yaala iyo tirada dadka population-ka dalka degan marka la isku qaybiyo qofkiiba waxaa kusoo hagaagaysa lacag ka badan 40,000 oo dollar. Jarmalku waxa uu kaalinta koobaad kaga jiraa adduunka oo dhan dhoofinta gawaarida amba baabuurta. shirkadaha ugu waaweyn uguna caansan waxaa kamid ah BMW iyo Adidas. kheyraadka dabiiciga ee laga soo saaro waxaa kamid ah kobarta, gaasta dabiiciga ah iyo uranium. sportiska ugu caansan ee wadankan laga ciyaaraa waa kubadda cagta waxaana ka dhisan naadiga xoogan ee Bayern Munich. xulka dalka Jarmalku waxa uu ku guuleystay koobkii adduunka ee sanadkii 2014. waxaa lagu tilmaamaa wadanka Jarmalka inuu ka mid yahay wadamada ugu horumarsan ee hormoodka u ah culumta oo dhan. qaybaha kala duwan ee culumta nolosha aadmiga sida caafimaadka, engineering